marka baaqa qayna dhaanta waxaan u dirayaa ra'iiska waddanka oo ah Muuse Biixi Cabdi waddanku waxa uu la gariirayaa waa dulmi garsoor dhexina ma hayno cid aanu maanta u ashkatoono oo ilaahay ka sokaysa ma jirto cid aan rafcaan u qaadanayna ma jirto cid marka xeer ilaalintu waatan wanjalaysa garsoorkuna waa kii aan soo bartay waxaan dulmi ahayn iyo eexna ma uga baranin markaas weeyaan marka dadkan maanta ama ha noqdaan baarayaal ama xeer ilaalin noqdaan ama kuwa ciidanka amniga hogaaminaya noqdaan waxay ku takriifayaan awoodda ummadda ka dhaxaysa ee dawladdu u dhiibatay shaarka ayaa lagu adeegsanaya lagu cadgoosanaya cid kastoo la naco oo lala culuubana lagaga cadgoosanaya dulmigan gariiraya jeerashii la circiirayaan ee ummadii la taahayso haddaan laga gaadhin waxay noqonaysaa ra'iisow dulmigu waxa weeyaan dulmi gariir baa inagu dhacaya danna umaha diin iyo dal iyo ummatoona inaga markaasi dawladnimo iyo shicib ahaanba dani waxay nugu jirtaa nafaheenna inaynaan dulmin inagu dhexdeenna dadka kalena aynaan dulmin faraha ka qaadno dulmigan waxaa markaasi aan leeyahay baaqaasi dhigo furan inuu ku dhaco ayaan rajaynayaa si dalka loo badbaadiyo maanta waxaa reeraheena ka dhacaya iyo waxa dalkeena gudihiisa ka socdana ninna loo sheegi maayo nin ragi waa ogyahay nacasna loo sheegi maayo dulmigana cidhi xumaantiisa daalimku muruga ayuu dhexlayaa markaasi maali daalimiina min xamiimin walaa shafiici yudaac ilaahay baa uga dhaartay daalim hadduu dulmi sameeyo dhammaan daalimiin sokeeye male gacal male u gargaaraya cid ilaahay agtiisa qiyaama uga shafraacaysaana ma jirto إن ظلم ظلمات يوم القيامة صار رسول واحد ساعة مسلم كل شيء ظلم مبتيء أدعوا نقول يا مركزي وفمانة القيامة وضحك على مركزية الدنيا ذنا عاقبة حنية ضعرب مركز لقد النبي شاعر بحروق كبير وحيد إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله مر الملوم إنه حتى هلكن اسكو دulminay waxaynu u tagi doonaa ilaaha abaaliyaha maalinta jazaaga iyo abaalmarinta ayaynu markaas u tagi doonaa agtiisana lagu kulmi daalimkii wax dulmiyay iyo kii la dulmiyay qaalib iyo maqluuba maalinta halkaas maxkamadda cadaaladda ee hortiisa lagu kala baxaya wanaad ogaan doontaa xisaabta maalinta aynu kulanna ilaahay agtiisa cidda markaa canaantiya eedu ay fuuli doonto waxaan hadalkayga ku soo khatimayaa weer suugaana oo walaalahayga oo dhan u dirayo waxaan leeyahay aadan sunna wuxuu leeyahay markii nacabigu geylamee gantaaluhu gees walbaba markay iiga soo gudbeen magariyaad baan fadhiyey geed iyo mahmaahda guunka ah barkaybaa kugu gantanee godimooyima goyn karteen kuwaan gacal moodi jiray markay hurka ii soo gurteen gabraha miyaa gacan sarrayn markay goolaabtankii maatada guulguulayeen anigu maan gibi dhaclayn gargaar rabbibaan ka sugay الله بقول بحشي كنت كان قاصد وحقا كرفكان هيا حلبان قود كصاريا قبرارتي وحان قدنين كنيا قالاي قدرا الدون واقلين بعين قدبتيدان قوبيا قبل أدك بان وطا صبر كلوائي قسين